waxaa si rasmi ah u soo gaadhay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya waftigii Somaliland ee ka qayb galay hadallada ay Somaliland la yeelanayso dalka ay jaarka yihiin ee Soomaaliya kuwaas oo ka qabsoomaya waddanka Turkiga waftigan oo hoggaan wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar haddana ah wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland isla markaasna ay yihiin wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland Xirsi Xali Xaaji Xasan iyo waliba wasiirka wasaaradda shaqada iyo bulshada Grad sidoo kale waxa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada iyo guurtida Somaliland oo uu weheliyo gudoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee arrimaha dibadda xildhibaan Xuseen Axmed Cige waxa isaguna waftigan xubin ka ah wasiirkii hore wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jamhuuriyadda Somaliland Cabdilaahi Cismaan Geeljire iyadoo ay waftigan weheliyaan oo ay la socdaan warfideena ka tirsan telefishinka qaranka Somaliland waxaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Bole International Airport سفير كحجين كسفارة سوماليلاند أي كل هذا وطن كان إثيوبيا أيها الصلاة ديرية بس لما ركزنا وسمها سفير كسوماليلاند يصيدوا كله وحايقون هالكاسيكو سودوي سراكيل سراء أو كاترسن وزارة أرمها دبدا أيوة كإثيوبيا iyadoo waftiga loo galbiyay hotelka looga diyaariyay caasimada waddanka Itoobiya magaalada Addis Ababa halkaas oo islaaca oo goor xiliyada dambe ka bixi doonaan isla markaasna uu shirka wada hadalladu si rasmi ah u furmi doono maalinta Axadda ah wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka furmi doona waddanka Turkiga ayaa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland warfineeyadiisa la socda waftigu waxay si rasmi ah ugu soo gudbin doonaan marxalad kasta oo ay shirarkaasi marayaan ومنير أحمد عقال محمد عقلي هدي تلفزيون قرنك مقالة أديس أبابا